guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxaa lagu qeexi doonaa runtii shuruuc runtii gudoomiyahana de shuruucdaas qaabkii loo heshiiyey de kolley anigu guddiga dib-u-eegista dastuurka ka mid ahay dokumentigii baan hadda ka dhigaynaa qaab luqa dastuuri ah iyo sida doorashooyinka loo gelayo kolley waxaan u malaynayaa su-aasha aan rabo inaan weydiiyo gudoomiye Xaliimo waxa weeyaan xeerka diiwaangelinta codbixiyaha kolley iyada waxaa ku qoran xeer nidaamiye laakiin inuu xeer nidaamiye ka weyn yahay oo uu u baahan yahay runtii xeerkaasi qaabka dee doorashooyinka qofka diiwaangelinaya codbixinaya haddii kaarkii ka dhumo iyo haddii qofkii laba jeer la diiwaangeliyo de waxyaabihii dee qeexayay in de ka ugu daran ee aad la doonayo in aad loo ogaado inuu yahay runtii xeerkan biometriga in national ID uu ka horeeyo horta oo la garanayo dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed leh runtii national ID haysta kadib markaas in lagu xijiyo diiwaangelinta si loo ogaado tirada dhabta ah marka mudane gudoomiye waxaa rabaa xeerkaasi wuxuu ku xiran yahay xeerka ama sharciga doorashooyinka oo iyo ku xiran shuruucdaas kala badan qodobka kale labaad waxa weeyaan mudane gudoomiye xeerka doorashada maadaama de axzaabta konton ka badan ay si ku meel gaar ah u diiwaan gashan yihiin goorma ayay noqonayaan axzaab rasmi ah ila shuruudihii wixii waan haynaa ilaa hadda konton baa si ku meel gaar u diiwaan gashan goobaha codbixinta ama goobaha diiwaangelinta aan iraahdo hadda ay gudoomiyuhu carabowday reer Somaliland iyagu ma gaadiidka booliska miyaa loo qorsheeyey mise meel kale aad ugu talagasheen su-aashaasna waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiye Xaliimo aad u mahadsantahay gudoomiyahaas kusoo koobaya su'aalaha heshiiska bay dabcidda wax laga weydiiyaa guddiga doorashada ma aha waxaa heshiiska galay waxaa weydiinaysiin cidda ay qorshayso heshiiskaas annagu meelaan ka galno heshiiska bay ma jirto sharciga xisbiyada siyaasadda wax yar aa ka qaldan wax badan kama qaldana waxaa ka qaldan meelaha waxaan isleeyahay arrintaas saas iyo saas waaye waxaa tixraac u aadaa constitutionka qaranka lambar hebel markaa lambarkii fiilisay oo soo qaatay iyo arrinta laga hadlaayo wax islaamba ma aha marka lambaradaasaa la qalday laakiin inta kaleeto meelahan waxaan ku darnay waxaa la yiri waxaa la yiri xisbiyadu waxaa si joogto ah loo diiwaangelin karaa markii ay haystaan 10 kun oo codbixiye oo diiwaangashan oo u qaybsan gobolada haddii marka diiwaangelintu ay daahdo xisbigiina laga rabo inuu codeeyo in muxuu ahay si rasmi loo diiwaangeliyo xoogaa waxaa moodaa inay caqabad ka imaanayso in yaraa la raaciyo oo la leeyahay haddii waqtigu uu gaari waayo isgeeni waayo guddiga doorashada inuu ka soo saaro muxuu ahay xeer nidaamiye inuu ka soo saaro intaasiito taasna waa marka waxyaabaha oo sharciga xisbiyada ka dhiman intaas badan ma ahan